waxaan aad uga mahad celinayaa soo dhaweyntii wanaagsanayd ee ehelnimada iyo karaamada iyo sharafta intaba lahayd ee lagu soo dhaweeyay aad aan loo kala harin aad iyo aad baan uga mahad celinayaa mahad celin kadib Puntland waxaan moogahay baan u maraynayaa 3 sano iyo bil ama 2 bilood meelahaas 3 sano iyo wax yar wajigii dee maalintii aan kaga tegay iyo kaan maanta ku waa kala duwan yihiin waa wax dhaca siyaasadda in lagu kala shakiyo oo maxaa haydeenay la isku qabto siyaasadda haddii lagu kala shakiyana lama wada shaqayn karo waxaa idinku filan misaal maxay wax u dhacaan lama yaraado kacaanka raggii wada dhaliyey nafta isdhaafiyeen tan waxoogaa waa lagu kala shakiyo boosas iyo xelal baa la iska qaaday laakiin taa naftaa la isdhaafiyeen raggii kacaanka wax ka dhaliyey oo raggii ugu adkaa ahaa baa naftooda la waasiiyey waxaa keena kala shakiga siyaasadda weeye tanna tii uun bay la mid ahayd adduunkana ma jirto colaad joogtaayna ma jirto wax waa dhacayaan laakiin wixii dhaca waxa ka dambeeya unbaa ka muhiimsan oo leega Soomaalidu waxay ku mahmaadaan carabi labadan bay isugu dhowo iyaguna way isqaniinaan waxa kaloo la yiraahdaa laba dhaxal isku haysa maxay isu tihiin lama weydiiyo lama yiraahdo maxay isu tihiin taa intaasaan kaga gudbayaa tan qodobka saddexaad aan ka hadlayaa wuxuu yahay annagu aniga iyo waftida siyaasiyiinta ila socotay iyo qayb dambe oo soo socota iyo qayb naga soo horeysay oo joogtay oo ay ka mid yihiin wasiir xareed iyo caaqilka iyo maxamed baraya rag door ama group baa halkan ila naga soo hormaray qolada dambe iyo qoladii naga soo horeysay annaguba waxaan u soconaa inaan reerka wax ka raro geedi caanale baa layiri soo ma ahayn reerka laga raro guriga hadda yaalo waxba lagaga garan waayey oo loo raro gurigan ka wanaagsan horta annaga imaatinkaygu kaa weeye iskama soo laaban reerkaanu idina raraynaa waxaana ka raraynaa runtiina waa qabaa reerku guriga uu ku sabansado waa laga raraa guri kalea loo raraa degalku markuu qaniin iyo balaaye iyo mushkilad iyo shilin iyo wax walba yeesho durin ah reerka waa laga raraa arrintaa markaa ridaahi waa arrin runtii muhiim ah waa arrin macno u samaynaysa shacabka Puntland waxaan kaloo rabaa inaan dadka dareensiiyo oo ogeysiiyo oo laga yaabaa dadku inaanay weliba shacabku waxba aanay ka ogeyn war hadda meeshaynu joognaa macno kale idinkuma fahamsiin karo si kale idinkuma qeexi karo laakiin waxaan idinku qeexi karaa fur iyo caagada aan islahayn baa isku xidhan ma isku xidhmi karaan fur iyo caagada aan islahayn iskuma xidhmi karaan soo ma fur iyo caagada aan islahayn baa isku xidhan iskuma xidhmi karaan waxa caagada ku jirana furkaasi ma celin karo dadaan furkeeda yahay soo ma waxa la mid ah dastuurkeenu haysano oo isticmaalaynaa waa dastuurkii axsaabta badan weey taasaa ina khasbaysaba oo aan noo ogolayn guriga inaynu deganaano saa waa in loo fahmaa taasaa noo ogola haddii kale aan bedelo dastuurka dee haddii la guuri maayo xad qarameedkeennii aan iskaga noqono boqolka ah iyo mali laakiin waxayna khasbayaa inaynu guuro waa dastuurka furka iyo caagada aan islahayn in la kala kaxayo fur iyo caagada isla la isku xidho taasina arrintaasina waa arrin muhiim oo
waxaan mithaalka u soo qaatay shacabka iyo dadka inaan dareensiiyo sida u jiraan waxaan leeyahay insha Allah aan khayraysano cidina yeesharaysan reerka guriga in laga raro oo guri kale ka wanaagsan loo raro cid walba khayr baa ugu jira insha Allah cidina meel kale wax ka eegin waxaan kaloo ku talinayaa Puntland anigu markaan ka tagay wajigan ka tagay wadaanada ka hadlayo wajigan qurux badnayn buu ahaa wax badan baan awooday inaan sameeyo inaan jabhadeeyo inaan waxyaabo kale inaan haddana runtii laba shay baa ii diidayo tan dee lixjacayl iga haysay qodob kale ii diidayo wuxuu ahaa anigoo dee nin mas-uula oo oday oo siyaasadda muddo ku soo jiray ahaa inaan mustaqbalkayga siyaasadeed u tulo oo aan mustaqbalkayga siyaasadeed aanan god madow ku ridin labadaa qodob bay ahayd waxaan leeyahay dadka kaloo hadda meelahan wax uga muuqdaan ama arrintan geedi caanale wajiyo kale iyo macnayaal kale u samaynayo mar walba lixjacalada Puntland xusuusnaada asal taasunbaa qofka siyaasiga ah oo kursiga doonayaana labadaa shay waa u muhiim ciduu xukumuu rabaa daluu xukumuu rabaa daduu xukumuu rabaa hadduu dabgeliyo muxuu xukumayaa waxaan leeyahay ilaahay waxa wanaagsan hayna wada tuso guriga aynu u guuraynana guri khayrallaha ka dhigo kaynu ka guuraynana muddo badan baynu ku soo moodnay isaga laftigiisu ha iska jiro insha Allah hadalkayga waa badiyey waxaa soo dhaweynayo mahad celinuun intaas waan iskaga laday mar labaad iyo mar saddexaad waan idin mahad celinayaa insha Allah wixii kale dee fadhi iyo waxay iska noqon doonaan iyo tashiyo kale hada billahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh